الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة ولا ليال إلهي بمهضله تبارك وتعالى إنه سامحي إنان كوكولانو في هذا اللقاء المبارك كلن كان آدك أبركيسا إن شاء الله تعالى ورجيني إنه إنان كالفائدة سنو فيما نستطيع إنت أنكرينو إلهي تبارك وتعالى هذا ولا ليال وحنقن كبلن قادني بهيد موضوع كسابسا عسبونيسين تنولشا كوبعينتا عقلقة أما كوبعينتا أفكارتا iyo inaan la isku dhiibin nolosha sidee dooni ha u adkaatee marka mawduucaas baan insha allahu tacaala ka hadlaynaa waa mawduuc aada u fiican maxaa yeelay waqtiga aan ku jirno ayaa inagu qasbaya inaan mawduucaas insha allahu tacaala aan fiicnina insha allahu tacaala aan ka hadalna ujeedaa walaalayaal waxaan ku jirnaa marxalad adag oo bini aadamku uu ku sugan yahay marxalad ay abuurmayso taariikh cusub marxalad ay burburayaan quwado waaweyn marxalad ay abuurmayaan quwado cusub waxaan noolnahay marxalad u baahan in dib u eeg la sameeyo nolosheenna aan dib u eegno dib u fiirino inaan dib u akhrino taariikhdeenna habsocodkeenna waxaan aaminsannahay waxaa madaxeenna ku jira sida uu qur'aanku inoogu yeedhay ilaahay kitaabkiisu tabaaraka wa tacaala ilaahay fii suurat alqiyaama wuxuu ku yidhi laa uqsimu biyowmi alqiyaama walaa uqsimu binnafsi allawaama ilaahay wuxuu ku dhaartay maalinta qiyaamaha oo ah maalinta ugu adag ee bini aadan soo mari doonta
وحكرونا إلهي كدارتي تبارك وتعالى نفط بني آدم كتعنان تبضن له بمعنى تحساب سقفك بني آدم كان قفك أن من سنين من سن إني وحكم مقيهن وحكم مقنا الضبقرة الردعية ولهذا أبو إلهي جل وعلا نفط أبو كدارتي علماء وحيد هذان أي التي تلوم صاحبها ونفط عنانة صاحب كيد يكون عنانة ما لم يفعل لما لم تفعل وحي فعناء سمين لها محاد سمين ويدي وحي حماء سمين محاد سميسي وحكا مقنا محي كاغا مقنتهي وحاد هيسين محاد كبعين لا دهي نفط نوعاس آمسا أيو إلهي كدارتي تبارك وتعالى marka marxaladda aan nool lahay waxaan dhammaanteen inteena ugu badan aan galnay waxa loo yaqaano al-i'tikaaf ad-daruuri i'tikaaf idiraari ah oo lagu qasbay i'tikaaf aanan ku tala gelin aan dooran ayaa adduunka la geliyay waxaad ogtihiin waxyaalada aadka u yaabka badan ee dunida ku soo biiray waxa weeye 10 sano ilaa 20 sano baa laga hadlayay ekolojiga hawadu inay xumaatay bini aadamku inay istaagaan inay wax ka qabtaan laakiin ilaahay dadkii intuu guryaha wada geliyay iyo caasimadii adduunka ugu waaweynaa la faaruqiyay iyo hawadii dib isku hagaajisay Chinaha hawadiisii way fiicnaatay sida laga waramayo Mareykanka hawadiisii way wanaagsanaatay Canada wadanadii sideedda ahaa ee soo saarkoodu aadka u culusaa hawadii ay fasaadiyeen ay talawuska ku sameeyeen dhammaanteed hawadii dib ay isku soo celisay waxaa la arkay makhluuqaad aan hore loo arkayn xayawaan baxsaday oo badaha hoos galay meel uu tagay la waayay yaa dib u soo baxay noloshiiba dib isku miisaamaysa marka dadkan ilaahay i'tikaafka u galiyay waxa loo baahan yahay in laga faa'iideysto marka insha Allah mawduucaas baan ka hadli doonaa oo u bixiyay nolosha jadiidi ama cusboonaysi noloshaada waxaan kaloo u bixiyay afkaartaada iyo aqligaaga kubci waxaan kaloo u bixiyay isdiibin sidaa daraadeed waxaan jecelahay inta aan mawduuca aan galin inaan maadaama aan idhi waxaan bilaabi doonaa duruus ku saabsan sidee nafta loo koriyaa waxaan ku horreysiinayaa ilaa iyo waxaan idin soo bandhigi doonaa wax aan ku tilmaamay ilaa iyo maxaan ku dhahdaa 13 fikradood baan idin soo bandhigi doonaa insha Allah taala hadduu ilaahay yiraahdo marka 13 maahina waxaan idin soo bandhigi doonaa ilaa iyo 16 fikradood 16 ka fikradood waxa ay ka qayb galayaan cusboonaysiinta nolosha yani kobcinta nolosha iyo in la isdiin bay ka qayb gali doonaan laakiin inta aan taagelin waxaan jecelahay inaan laba arimood iyo xadiis aan ka hadlo xadiiskaas oo ku saabsan xadiisaanta inaan akhrino waqtigan aan nool lahay haddaba ikhwaani fillah walaalayaal waxaa halkan inoo yaala koronaga amba cudurkani covid-19 waxa uu leeyahay baa la yidhi mashaakil wuxuuna ku badnaan doonaa mashaakilkiisu wadanada baahan ee faqriga uu ka jiro Djibouti oo kale 800 qof baa la sheegayaa laakiin waxaa ka yaab badan 2 qof oo quraata ku dhimatay waxyaalo yaab kale ku jirta ee la akhrin karin waxaa kale oo la sheegayaa bahashan Chinuhu sameeyay ee shaybaarka ee lagu baarayo 30% waxaa la sheegay inaynan ahayn naajix run inaynan sheegayn oo fashal badan uu ku jiro 30% waxaa kaleeto oo meesha yaala oo laga waramayaa in faqrigu iyo baahidu iyo gaajada fidsan ee ka jirta dhulkeena gaar ahaan geeskeena Afrika inay keeni doonto inuu cudurkani dhabar jabis uu sameeyo marka cudurkani bilowgiisii baan nool lahay bika ayaa hore la inii sheegay laakiin dhibaatadu waxa weeyaan waa cudurkan iyo faqriga maxay sameeyeen marka dawladaheenan Afrikaanka ah ee gaar ahaan geeskeena Afrika waxay sameeyeen waxay ku daydeen fikradda reer galbeedku dadka wadanadan lacagta leh amba khaliijka oo kale ee dadkii guryaha galiyay waxa markaa la yiri guryahana hal la galo waa kow masaajidda hal la xidho waa labo arinta saddexaad waxa la yiri hal la kala fogaado gacmaha hal la meydho hal la dhaqo wax aynkaasoo iska caadi ah iyo dadka loo sheegay waxa loo yaqaanaa mashaariic juz'iyya waa mashaariic gobol ah qayb ah يعني مشكلتنا waxay u baahan tahay sidii maalintii hore azmada aan ka hadlay waxay u baahan tahay in la qaato laba aragti oo xoog badan aragtida ah inuu noqdo xalku shaamil dhibaatada in haysata waa corona imika
laakiin ma aha corona waxa la xalinayo. waxa la xalinayo coronaaga wuxuu keeni doono, waxa la xalinayaa coronaaga waxa la socda, waxa la xalinayaa qaraarka la qaatay dhibaatada la socota, waxa la xalinayaa dadka waxa ku dhici doona ayaa la xalinayaa. marka maxaa la yeeli? Jabuuti sanduuq baa la sameeyey, waxbana aan ka qaban oo dadkii gaajada kusii beeriyey. wadanada kaleeto ee Soomaaliya, Somaliland iyo wadanada kaleetana wax badan oo ilaa imika tallaabo laga qaaday lama hayo. sidaa daraadeed waxa weeyaan waxaan u baahannahay mashruucu xalku inuu noqdo xal shaamil ah. waxyaalada yaab kale waxaa ka mid ah dadka in lacag laga ururiyo oo la yidhahdo lacag ha la bixiyo maaha. waxa weeyaan 3 shay baa la samayn karaa si lacag loo helo. arrinta koowaadii waxa weeye xoolaha ay haystaan dadka xoololeyda ah, kuwa xoolaha xaaraan ay ku soo gashay iyo kuwa ay xalaal ku soo gashayba waa in nisbo laga qaado, nisbo lagu xakumo. nisbadu waa maxay? waxaa lagu xukumayaa matalan 15%, 20% xoolaha ay haystaan inay geliyaan la dagaalanka faqriga, oo nin walba uu sameeyo meel isagu uu dadka faqriga kala dagaalamo. dowlad in wax loo dhiibo maaha, dowladu way cunayaan. marka sidaa daraadeed waxa weeyaan inaad adigu aad samaysatid meelaad kula dagaalantid, laakiin nisba la isku xukumo. culimadu soo saara nabigu muxuu yiri calayhi salaatu wasalaam fil maali xaqun siwa zakaat, maalka waxaa ku jira xaq aan ahayn zakada. zakada xaq aan ahayn baa ku jira. culimo fara badan waxay soo bandhigeen in zakada la soo qadimo, in dib loo dhigo, in waxaas waa iska wacdi uun oo wax badan ma qaban karayso. laakiin waxaa la rabaa waxa weeyaan in aanan walaa zaka lasoo hordhigo, lasoo bandhiga zakada waa la bixin doonaa. qof kastoo muslima zaka uu bixinaya oo ilaahay ka cabsoonaya. qof aan zaka bixinaynin ma jiro. laakiin zakada uu qofku bixinayo ma tirtiri doonto faqriga maanta yaala. marka sidaa daraadeed waxaa loo baahan yahay qofku inuu isku xukumo 15%, 20% xoolaha uu haysto inuu bixiyo maanta oo uu kula dagaalamo faqriga. sharikaadka waaweyn ee koonfurta Soomaaliya ka jira, sharikaadka waaweyn ee Puntland ka jira, sharikaadka waaweyn ee Somaliland ka jira, sharikaadka waaweyn ee Djibouti ka jira, sharikaadka waaweyn ee gobolka shanaad ee Soomaalida ka jira, sharikaadka waaweyn ee Kenya ka jira, intuba waxaan ugu yeedhaynaa iyagoonan qof kale xoolahooga u dhiibin inay iyaku isxakumaan, ay xoolahooga soo saaraan oo kadibna ay ku xakumaan inay kula dagaalamaan hada alfaqru almumanhaj. ilaan gaajadan ka jirta adduunkeenna waa gaajo la sameeyey, maaha gaajo ilaahay keenay tabaaraka wa tacaala. nidaam xumada gaajada keentay, balaayada nidaam xumada keentay. markaa taasi waa midda koowaad weeye. kuwan xoolaha xadayna anu 10 malyan baan bixiyey iyo 3 malyan oo faran baan bixiyey Djibouti waxaan ka maqlayo, waxa sax maaha. waa inaan nisbo weyn xoolihii aad xaday aad bal cala aqal balanshiismaa tabiyad aad ku sameyshidood ummadda dib aad ugu soo celisid. markaa taasi waa midda koowaad weeye. midda labaad waxa weeye ikhwaani fillah, dagaalka ugu weyn ee Afrika, geeskeena Afrika waxa weeye waa jaadka. waxaan anu la yaabanahay sida nin doctor oo ka hadlayay magaalada Hargeysa oo Muuse Bixi la hadlayay oo fariidnimo kula hadlayay aan maqlayay. waxa weeyaan wali ma jiro qof inta uu soo fadhiistay telefishanka ayaantii ugu horeysay ee aan soo fadhiistay halkan waan sheegay oo ka hadlay jaadka ma jiro amba qaadka. geedka qaadka la yiraahdo waa problemka ugu weyn ee ina baabi'in doona, keeni doona inay dad fara badan oo ummadeenu ay dhintaan oo cudurkan corona ay ku dhintaan. marka inta aan miskiid la xidhin, inta aanan la xidhin suuq, waxaa ka horeeya in qaadka la joojiyo. qaadkani riwaayad maaha. qaadku waa mushkilad. inta corona ima mushkilad buu ahaa, maantana waa mushkilad laabatay amba 5 laabatay amba 10 laabatay. marka qaadkaasi xal buu u baahan yahay. anu waan ogahay oo qaar baa oranaya dhaqaalaha naga soo gala. dhaqaalaha ilaahay quraanka markuu khamriga ka hadlay wuxuu yiri wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dembigooga iyo dhibaatadooda ka badan nafcigiisa. marka nafciga jaadka ka imanaya, mashaakilka uu keensanayo oo insaanka tirtiraya ayaa ka weyn. marka qaacidadana waa in la qaato. arrinta saddexaad oo coronaaga wax weeyaan, ayaan dhaweytay waxaan akhriyay xagga zakada diraaso cajiibaan akhriyay. diraasada waxaan ka akhriyay doctor Cali Qardaaji, wuxuu ku takhasusay faqiihna waa dhaqaalaha islaamkana waa ku takhasusay. wuxuu yiri zakada muslimiintu ay haystaan, xoolaha muslimiintu ay haystaan maalqabeenadu, markaan xisaabinay xisaab cilmiga ku fadhiisteen shirkii Malaysia kaga qayb galay ee culimada islaamku isku yimaadeen. wuxuu yiri haddii lacagta la bixiyo zakada ka baxaysa 3 sano gudaheega yakhtafi alfaqru min alcaalam alislaami. faqriga iyo baahidu way qarsoomi, way baabi'i dunida islaamka.
marka waxaa loo baahan yahay walaalayaal dadkan inay faqri la dagaalamaan inay cuduro la dagaalamaan iminka marka laga hadlayo matalan corona wadanadeenu ay ka hadlayaan waxay u jeedaan inay adduunyadu usoo gurmato waa brojeeyaad weeyaan mashaariic la samaysanayo laakiin su-aashu waxa weeyaan ma ogo maanta adduunka inuu isbedel ka dhacay maraykanku lacagtii buu ka joojiyey ururka caafimaadka adduunyada uu ka joojiyey xoolihii uu siinayay adduunka isbedel baa ka socda gargaarada way istaagi doonaan wadanadan iyakiiba isxambaari kari la Oroba alcajuus Oroba way duqowday Isbaaniya loo gurman kari waayay waxa loo gurman kari waayay Talyaani oo Yurub ku yaala waxa u gurmatay Qatar waxa u gurmaday Turkiga waxa weeyaan Turkigu wuxuu maanta soo saaray dawadii saddexaad ee corona uu kula dagaalamayo markii hore wuxuu soo saaray cilmi baarista haddana wuxuu soo saaray hal kale oo maaragtay qofka hore loogu ogaanayo imikana wuxuu soo saaray jihaaskii gargaarayay naqaska oo waliba uu yiri waa noocii ugu dambeeyay oo dunidu ayna sameeyeen marka wax weeyaan wadanadan dadaalaya oo nool oo doonaya inay taariikhda galaan taariikhda daaqada lagama galo albaabyada ka galayaan dadaal baa lagu jiraa si caalamiya loogu jiro marka sidaa daraadeed ani waxa ila tahay gargaarka ay waayeen reer Yurub ay kala waayeen adiga ku iman maayo waxbana adduunka ha ka iibinin brojeeyo iyo problemyo dad aan corona hayn in la oran corona ba haya dad fara badan baan Djibouti la xidheennay duri ma hayo ma qufacayo dhibaato male wax adduunka ilaahay ma jiro waa la wada xireeyay oo dhakhtar lagu xireeyay adduunka waxa la dhakhtar waxa la geenayaa qofku markuu marxaladda labaad ee ugu dambaysa soo marxaladda saddexaad laakiin Djibouti waxay qaadatay in dadka la geeyo dhakhtarka marxaladda koobaad dadka la ururiyo oo meel la fadhiisiyo markaas baa ina yaroo dhalinyaro ah oo maaragtay ka ag daaqa maxaan ku idhahdaa dawladda la siiyey projectka cunto samaynta oo la cuntada adigu soo samee oo soo kari oo 800 ee baasho ay hayso cuntada u soo kari marka bay dad fara badan ay leeyihiin war aniga ma laga helo meesha han tago cuntada han ka cunee cuntadii baa la maqaaxi baa la samaystay waa project weeyaan waa dadka dawladda ka ag daaqa markaas baa loo sameeynaya maartay mashruuc oo maartay dadka bini aadanka wax ku siiyo arintaasi waa Djibouti weeyaan waxaan waa film weeyaan masraxiya dhada waxa uu yiraahdaa nin maartay caalima oo Mareykana wuxuu qoray maalin dhaweeta kitaab uu bixiyay sida ay Afrikaanku wadanadooda u dhaqaan amba u xukumaan wuxuu yiri dhamaantood waa masraxiyad laakiin masraxiyada waxa isla ugu buuri laba qolo kuwa Afrika xukuma iyo kuwa Afrika gargaara kuwa Afrika gargaarana filinka way og yihiin oo lacagtaasi meesha marayso iyo sida loo dhaqmayo kuwa maartay Afrika xukumana way og yihiin lacagtaas sida ay ka yeelayaan yidhaahdeen marka intaas waxaan ugu tala galay corona-gan aan la noolahay wuxuu u baahan yahay aqli cusub wuxuu u baahan yahay aqli jadiid laakiin annagu maadaama aan guriga dhex fadhino dad fara badan waxay leeyihiin waa dadka qaar baa gaajoonaya qaar baa harad war nabi maxamed isagoo gaajoonaya fikiriyay sallallahu alayhi wasallam dagaalkii qaswatul ahzaab markuu galay nabigu sallallahu alayhi wasallam nin baa u yimiday wuxuu ku yiri yaa rasuulallah gaajo ay haysa wuxuu ka qaaday maradii buu calooshiisa ka qaaday wuxuu tusay hal dhagax oo ku jira nabiguna uu ka qaado 3 dhagax buu ku xidhay caloosha macnaha iyadoo xaaladda lagu jiro dadku way fikirayeen dadku waxay doondoonayeen solutionno dadku waxay doondoonayeen horumar kama dhigno qofka gaajoonaya inuu fadhiisto uu dhiibo uu yiraahdo anu maxaan sameyn karaa waxaan sameyn karaa ma jiro qofka maartay wax haystana uu yiraahdo wallahi ma bixi karayo waxaan sameyn karaa ma jirto adduunkan waxa ugu daran waxa weeye al-istislaam qofku inuu isdhiibo sidaa daraadeed waxaan ka sheekin doonaa 16 maartay fikradood oo nii soo bandhigayo 16 ka fikradood inta aan nii soo bandhigin waxaan jecelahay ikhwaani fillah xadiis nabiga calayhi salaatu wasalaam shadaad ibn aws uu ka warinayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabo kale ay ka warinayaan nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam ala adulluka makutusa ala sayyid al-istighfar sayyidka ilaahay lagu baryo istighfartu dambi dhaafku dikriga la radaa istighfar wuxuu leeyahay sayyid madax buu leeyahay madaxa ma ku baraa istighfarta buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan xadiiskani nabigu wuxuu kaloo yiri man qaalaha ninka yiraahda min an-nahari daraarta yiraahda muuqinan biha isaga oo yaqiinsan waxa ku jira xadiiska famaata dhinta qabla an yumsiya intoona galabtu imanay uuna galabaysan fahuwa isagu min ahli aljanna jannada ayuu ka mid yahay dadkeega xadiiska wuxuu rasuulku yiri waman qaalaha ninka yiraahda min al-layli habeenkii وهو إسقو موقن بها رميسا يقين عقيدة رميسا قبل أن يصبح إنتو نوى بريسا إلى هذا كلمة
فهو من أهل الجنة. إذن جنة دور دنت يعني فمات قبل أن يصبح دنت جنة يقرأ نبي عليه الصلاة والسلام. حديث كان رسولك صلى الله عليه وسلم وحاول نبريا لبا إلا وحاول جدا شن الريموت أو وين سيد الاستغفار بعد هذا إن أخرنا ومهم قارما مركو واجو بريو يا مركو هبينكو صوغلايو محمد رسول صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رسول الله. حديث كان وحو النبي يقول عليه السلام وإنما معلنا يا صومالي هان اللهم إلهي ربه اللهم إلهي اللهم معنيه وحوي يا الله أنت أدقو إلهي بالله الله يا قفك مسلكي ربي إلهي قاطعي اللهم إلهي أنت أدقو ربي كي أبو ريباتهي ربي كي خلقي باتهي ربي كي أرزاق باتهي وتوحيد الربوبية قرية وحولي لا إله معبود حق لغو عابد مجره إلا مو يعني أنت أدقى إلهي بلا خطابة يا حق روح لغو عابد أحد لغو عابده حق أدون كان مجره أن أدقى أهين توحيد كالو قرية حوليهي وصوص عنيا حولها يا خلقتني وادي أبورتي إلهو أضاي أبوري إلا كما إيمان إلهو ما إيه قف آميسا إني طبيعته أبورتي ناجركم وحانا هي قف آميسا إن أدقو أدون كان إكانتي وأنا أنيقنا وحانا هي عبدك أدونكاي وأرين لبا أريس صدحات بقرنيا وحدنا يري وأنا أنيقو إلهو على عهدك وحان كسوغانا هاي بلانتادي ووعدك إيا يبوهاغي aad ii sheegtay nebiyada igu soo dhiibtay fidradii aad igu abuurtay anoo dhabarka aadan ku jira sidii aad ii uuntay baan ku suganahay mastadactu inta aan awoodo istidaacadayda oo dhan waan gudanayaa waajibkii iyo ballantii dhexdeena taallay intaa markuu yidhi buu ilaahay weydiisanayaa acuudu bika waa arrintii afraad ilaahu waxaan kaa magan galay min shari maa sanactu wixii aan sameeyey oo shar ahaa adaan kaa magan galay miskiin baan ahay dembiyaan sameeyey bini aadan baan dhibay nafteedaan dhibay adaan xaqaagii ka soo bixi waaye intaa oo dhan oon sameeyo dhan adigaan ilaahow kuu dhiibtay adaan kaa magan galay sharta nafteedoo dhan wuxuu leeyahay rabbow abuu'u laka waxaan ku ictiraafay waxaan qirayaa min qalbii qalbigayga iyo caqligayga iyo jiritaankayga iyo saliiladayda unugyadeedoo dhan ahaantaydoo dhan waxaan ka qirayaa binicmatika calaya nicmadaad aniga i siisay subxaana allah waxaad nicmad i siisay oo dhan ayaan qirayaa arrintaasina waa arrinta shanaad ilaahay wuxuu ku yidhi wa abuu'u waxaan qirayaa ilaahow yaa rabbi waxaan qirayaa bidembii dembigaygaan qirayaa waan ictiraafayaa miskiin baan ahay ilaahow xaqii aad igu lahayd kama aan soo bixin xaqay nafteedu igu lahayd kama aan soo bixin sidii loogu talagalay ilaahow kama aan soo bixin xaqay ummaddu igu lahayd ilaahow kama soo bixin wixii waajib ahaa oo dhan wixii dembi ahaa oo dhanna faraha kama wada qaadin waxaan qiranayaa inaan dembiilo ahay iyuu ku hor qiranayaa allah xadratu lilaah ilaahay hortiisu ku qiranayaa wuxuu qiranayaa baynahu wa bayna rabbih isaga iyo rabbigii laa axada yasmacuhu qof maqlayaayo ma jiro waa dikrun waa xus wixii aan sheegaynayo waa iskuul islaamku waa madrasa tarbawiya ruuxaaniya khaalisa wuxuu leeyahay fakfir lii haddaba waxaas oo dhan kol aan qirtayba ilaahnimadaadii aan ogaadayba dacfigaygiina aan ogaaday ilaahow ii dembi dhaaf sababtu fainahu laa yakfiru dunuuba dunuub axad dhaafi karaayi ma jiro oo adiga aan ahayn ilaa anta adiga waxaan ahayn yaa arxam araaximiin xadiiskaasi iyo dikrigaasi wuxuu nebigu u bixiyey sayid listikfaar inaad tidhahdid astakfir allah 7 jeer siduu nebigu sheegay ama 100 jeer waa wax wanaagsan inaad tidhaahdid rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf sida aan ku dhahno marka aan sajdataynka markaan labada sujuud dhexdooda soo fadhiisanno waxa ugu wanaagsan in dhahno rabbi kfir lii ilaahu ii dembi dhaaf tabaaraka wa tacaala
إلى إلهي برنو سبحانه وتعالى أن اللهم اغفر لنا ولوالدينا إله أنك إيا والد كيجيب إله ودن بداف إيا ولمن دخل بيوتنا كو قريها يغفر مسلما أو مسلمين إله ودن بداف سيدو النبي نوح كدو عيسى جري عليه السلام إنان إلهي برنا سيدو النبي إبراهيم بري رب اغفر لي إله أنيق إيداف آباهنا أوداف إنتي أنا لقعلين سيداس أو كليتو وحسو أروري أو بدن لكن تاني وحويان ودعاء قارة وخاص ويان نبي محمد باسيي مقعا سيد الاستغفار إلهي إلا غبر يو تأغو سيدسان وبقركي ويان إذن هكفا إلي سنو كالمدن maxaa ku jira haddaba meeshan 6 arrimood baa ku jira kow waxaa ku jira hortaba qofka muslimka ah maanta culimada tanmiya albashariya waxay yiraahdaan bini aadamku wuxuu maraa 3 marxaladood marxalatu waxay maraan anta marxalatu ana iyo marxalatu nahnu maxay ka dhigan tahay taasi waxa dhada qofka bini aadamkii marka uu dhasho i'timaad mutlaq ala alwalidayn waxa uu tala saartaa labadiisa waalid noloshiisoo dhan waxaa gacanta ku haya bacd allah labada dhashay amba dadka korinaya kafaalo qaaday ilaa uu ka weynaanayo 10 jir iyo 15 jir ka gaadhayo ictimaadkiisu waa cala al-aakhar marka muxuu leeyahay marxalatu anta wuxuu ka leeyahay waalidkiisa ininka nolosheeda gacanta ku haya marka uu qofku soo gaadho 18 jir ee uu maarata qaan gaadho wuxuu isku qaataa inuu wax walba yahay uu qooqa wuxuu noqdaa marxalatu ana buu galaa waanka dhalinyaradu marka ay 15 soo gaadhaan 20 ay ku jiraan ilaa ay 25 ka gaadhayaan waxay ku nool yihiin at-tamarkuz ala ad-daat qofku isaga isku meeraysta marxaladda saddexaad waa la bislaadaa wuxuu qofku gaadhaa marxalatu nahnu al-jamaa'a marxaladda dadka bini aadanka aad inaad ka maarmi karayn aad ogaatay oo la noolaanaysid bini aadan al-amal bil fariiq ma'a al-fariiq in dadka lala shaqeeyo marka wuxuu qofku gaadhaa halka saddexda marxaladood waxa dhacdaa waa labada marxaladood ee hore waxa dhacdaa waa marxalatul tufula ilmuhu qofku uu yar yahay dadna waa marxalatul nudj qofku waa bislaaday dadka bini aadanka sidaabay dabiiciyan u koraan laakiin waxa la ogaaday inay jiraan dad aan ka weynaan ana iyagoo waaweyn oo 30 jira 50 jira bal waxaan 70 jira iyagoo kula ana sidii fircawn ana rabbukumul أعلى أنا أقول محول إبليس أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كخير بدن إسقع أنا المتأخرة هي التي تخرب الحياة أنا ذا أن كهرين أنيقا سدا أتكم قشين مدح أفريقيا وكله وأنا أن جبوبي ويان دتكو وحي قادان نحن أنكو وحن ربنا annaku markaa waa ummadii oo dhan waa bulshadii oo dhan waa jamaacadaad ku jirtay waa ururkaad ku jirtay waa qabiilka ka tirsanayd waa naxnu waa annaka weeyaan laakiin waxaa la ogaaday bilcilmi nafsi tarbawi cilmiga nafsiga ee tarbawiga ah ee ruuxiga ah cilmiga ay sameeyeen cataa allah sakandari raximahullah cilmiga ay sameeyeen imaam alghazali raximahullah waxaa la ogaaday inay jirta marxalada afaraad marxalatu huwa marxalada afaraadi waxa weeye مرحلة هو إنه قفه قالوا إنه إلهي يسكوها الله يكلي تبارك وتعالى معود النبي يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مركو يسكوه بصدي إنه كنا في الظلمات الثلاث بطني يا إمارة مجد جهبينك يا علوشي حوتك وحود إلهه وحاكم بريايا أديك أمبان كنت رسالنا يا ميشان يسار أن لا أنت يسويس اللوبي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أيانتي دقالك لقو سوق هذا طائف وميلو كبح ويمحوري اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس هو مرحلة هو محوري النبي إبراهيم عليه السلام إذا مرضت فهو يشفين هدان حنوستؤون جرودو إساقا هي عافمات كيسينيا بل waxaa ku horeysiyay hadaan cunto u baahdana isaga cuntaysiya hadaa sharaab u baahdana isaga i waraabiya waxaas oo dhan waxa weeyaan waa marxalatu huwa waa marxalatu ma ba'da an-nudj culimadu waxay dhahdaan culimada tawxiid culimada al-ikhlas culimada taskiya waxay dhahdaan waa marxalada ka dambaysa
markuu qofku bislaado uu sii galo weyaan marxaladda weyaan idan halkan maxaa ku jira qofka muslimka uu bislaanaya uu isdhiibaya allahuma laa takilnii ilaa nafsii walow tarfata cayn ilaahu nafteyda ha ii dhiibin irgibirsina ahaatee adigu amarkayga tawalli yaa rabbi tawalla amranaa amarkayaga adigu gacanta ku hay saas buu le allaahuma anta rabbii ilaahay wuxuu u qiray tawxiid rububiya wuxuu u qiray inuu yahay ilaahay rabbigiisa khaaliqiisa arrintaa waxay la dagaalamaysaa waxa loo yaqaano maanta atismiga alilxaad labo wuxuu qiray allaahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta tawxiid aluluhiya ilaahnimadii buu qiray allah buu qiray tabaaraka wa tacaala inuu yahay ka qura ee la caabudayo ilaah waa allah ilaah waa maxay almacbuud weye waa ka la caabudo ilaah waa maxay alxaakim waa ka nolosha xakuma ilaah waa maxay alaamir ka wax amro weeye alaa lahu alkhalqu waalamr labadaba isagaa iska leh laa ilaaha waxaa qof lama jiro oo gacanta ku haya ilaa waxa weeyaan anta adiga wuxuu qiray markaa tawxiid aluluhiya uu ka yimid intaa wuxuu qiray isaga wuxa uu yahay sii saddexaad insaankan muxuu yahay man ana khalaqtanii adaa i abuuray kow masderka aan ka imid meesha aan ka imid waa adiga wa ana aniguna cabduka addoonkaagaan ahay cilaaqada labadeena inoo dhaxaysa waxa weeyaan cilaaqatu alcabdi bisayid adaa i xakuma anna hoostaadaan joogaa amarkaagaan maqlayaa amarkaagaan qaadanayaa amarkaagaan dhegaysanayaa nahyigaagaan ka tagayaa ana cabduk waxaad ii dirtaan qabanayaa waxaad ii dirina waan daynayaa ana khaadimuk adaan kuu shaqeeya okay saddex muxuu qirtay wa ana calaa cahdik ballantiina waan ogahay marka halkana waxaa ku jira aliqraaru bilkhaaliqiya waalcubuudiya waalcahdiya saddexdaa shay buu qirtay waa arrinta saddexaad weyaan tawxiid rububiya tawxiid aluluhiya iyo alkhaaliqiya alcubuudiya alcahdiya inuu ilaahay addoon u yahay inuu ilaahay abuuray inuu ballantiina ku jiro ballantaasuu ka soo baxaya sida ugu dambaysa fattaquu llaha ma istadactum buu arrinta afaraad wuxuu qirtay inuu yahay insaan shar badan oo khaldami kara laakiin halkuu sharkaa la tagi acuudu bika min shari maa sanactu wixii aan sameeyey oo dhanna adaan kaa magan galay annagu waxaanuna waxaad noo qortay iyo adaa igu talagalay iyo maaha anaa isagaa qiranaya aliqraar bidacf arrinta kale cajiibka waxayaan waliqraaru bidambi wanicma nicmadiina uu qirtay dembigiina uu qirtay luqad quratuna ku qirtay abuu'u binicmatika calaya wa abuu'u bidambii okay markuu intaas oo dhan ilaahay u soo qirtay uu ishortaagay tawxiidkaas uu ishortaagay cadiimka uu ishortaagay raxiimka uu ishortaagay meliga uu ishortaagay jabbaarka uu ishortaagay jabaruudka uu ishortaagay quduuska uu ishortaagay mu'minka uu ishortaagay muhayminka uu ishortaagay qaahirka bal qahaarka wahuwa alqaahiru fawqa cibaadi uu ishortaagay qayuumu samaawaat uu ishortaagay meliku samaawaat uu ishortaagay nuuru samaawaat ayuu ku yidhi fakfir lii ilaahu ii dambi dhaaf ilaahu ii dambi dhaaf yaa rabbi miskiin baan ahay ilaahu waan sukaa dhiibay kaniisad ma tagayo eeg baadari uma tagayo wadaad uma tagayo sheekh uma tagayo maqaan ma tagayo miskiin ma tagayo gurigiisuu iska fadhiyaa sariirtiisuu iska fadhiyaa firaashkiisuu iska fadhiyaa geedkiisuu iska hoos fadhiyaa isaga iyo rabbigii baa sheekaysanaya fakfir lii ilaahay uma baahno wasta qof loo sii maro hunaaka laysa bayna allahi wa bayna cibaadihi wasiit ilaahay telefoonka qaado dhag dir qul yaa allah wuxuu koranayaa labayka yaa cabdii maada turiid ilaahay muxuu ka yidhi nebi yuunis markuu ilaahay baryay muxuu yidhi fastajabnaa lah waan aqbalnay wakadalika sidaasoo kaleetaan mu'miniintan u badbaadinaa markuu nebi muuse baryey markuu nebi baryey maaragtay ayuub muxuu yidhi fastajabnaa lahu fakashafnaa maa bihi min dur waan aqbalnay markiiba sidaa baan uga qaadnay durrigii oo dhan nebi ibraahim markuu lagu tuuray maaragtay dabka uu yihi xasbiya allahu wa nicma alwakiil ilaahay wuxuu yihi qulnaa yaa naaru kunii bardan wa salaaman
ilaahay wuxuu ka waramay nebi muuse markii la eryanayey ay ku yidhahdeen gaaladii maarata saxaabadiisii innaa lamudrakuun waana la gaadhay waana la haleelay wuxuu ku yihi kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ilaahay bay la socdaan nebi muxuu dhahdaa nebi moxamed sal slam markuu abubakar ku yidhi hadday na soo egaan wayna arkayaan laa taxzan ina allaha macana maa danuka bithnayni allahu saalisuhuma okay marka waxaas oo dhan wuxuu ku tusayaa xadiiskan waa cajiib aan xafidno allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calaa cahdika wa wacdika ma staطactu acuudu bika min shari ma sanactu abuu laka binicmatika calay nicmadaadii o dhan baan qirayaa wa abuu'u bidanbi dembigaygiina waan qiranaya uqirarku yaan abuu وباءوا بغضب من الله وقلنا ويه فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت نكا إلى هذا هبينكي أو دنتا سوى يقينسا جنة قليا نكا دراتي إلى هذا أو دنتا سوى يقينسا جنة قليا ما لنا بوقف لمن يا موكتين أوكي إخواني في الله أنت واحد كسر بحني حديث كاس نحن إيماننا موضوعي لبعض أفردنا هالكن أو أها نلاشى جديد عسبونيسي afkaartaadana tatwiiri oo kobci hana isdhiibin waxaa jira laba kitaab oo aada u wanaagsan oo maalin halkan niga sheegay kitaab waxaa qoray sheekheena weyn alcalaama maxamed alghazali raximahullah kitaabka waxaa dhada noloshaada cusboonaysii jadid xayaataka kitaabka kalena waxaa qoray delkerneji wuxuu u bixiyey noloshaada qalaqa kada stresska siisiga murugada iska daa noloshana bilow okay ma fikradda ugu horeysa nisiinaya markaa maxay tahay labada kitaab baa nisiinaya inaad akhrisataan dadka wax yaqaana waxaan rabaa in nolosheena aan jadiidino nolosheena inaynu noqon nolol baaliyowda nolosha waxaa baaliyeeya saddex arrimood kow maxaa baaliyeeya nolosha maxaa dib u dhiga maxaa nolosha ka dhiga wax qadiima oon cusboonaysiga u diida saddex shay arrinta koobaadi waa maxay in aad u noolaatid si isku mida maalin walbaba inay maalin walbaba afkaartaadu isku mid ahaato noloshaaduna isku mid ahaato dhaqankaaguna isku mid ahaado ma noqonaysid qof is-cusboonaysiiya waa kow laba waxa aad maskaxdaada inaad korin weydid ood ku soo biirin weydid wax cusub noloshaada markaa way baaliyoobaysaa walidaalika culummadu waxay dhahdaan waxaa loo baahan yahay maalinkiiba inaad noloshaada kusoo dartid boqolkiiba 3 boqolkiiba 3 waxay ka dhigan tahay inaad ugu yaraan akhrisatid 70 ilaa iyo 100 bog oo safxadood aad kitaabka akhridid cusub madaxaaga waxaa kusoo biira dhowr afkaar cusub inaad dhegaysatid muxaadaro cusub oo wax cusub kuu sheegta madaxaaga waxaa kusoo biiray wax cusub inaad ka qeyb gashid seminar amba formation amba tababar noloshaada wax cusub kusoo dara ayaan walba waa inaad isboonaysiisid weeyaan jadid xayaataka taas baan ku siinayaa corona ha ku siiya fursad noloshaada aad ku jadiidisid aqalkaad fadhidaa isjadiidi gurigaad fadhidaa isjadiidi waxaad fadhidaa meel cidlaa isjadiidi ka faa'iidayso inaad noloshaada cusboonaysiisid labo sida ku qoran buugga delkerneji ama buugga maxamed ghazali raximahullah ha noolaanin calaacal iyo murugo ee noolow fii xuduudi yowmika maalintaada maalin baad ilaahay ku siiyey waa fursad shalay waad ka imatay ma soo noqonayso beritoole inaad gaadhaysidna ilaahay baa og laakiin maanta waad nooshahay 24 saaco oo cusub buu nolosha lagu ogolaaday maxaad samaynaysaa noloshaada ku dhex noolow si fiican laba shay samee labada shay waa maxay dadka aad la nooshahay la farax labo ilaaha noloshan ku siiyeyna u mahadnaq maxaad markaa samaynaysaa barnaamij yowmiya samayso min waagu markuu baryo ilaa aad ka seexanaysid inta u dhaxaysa barnaamij qoran ku soco maxaad akhrini maxaad tukani maxaad soomi maxaad maaragtay dikri samayni maxaad dad bari maxaad adiguna barani barnaamij qoro af haddaad aqoon af baro waa lagu xidhay haddaad ingiliishka aqoon ingiliish baro haddaad faranjiga aqoon faranji baro
haddaad suudaaniga af carabiga aqoon af carabiga baro dad fara badan markaan maqaal carabi qoro af carabiga ma aqaana baro tacallamuu barta qabla an tasuuduu intaad madax noqon qabla an taquuduu intaad wax hoggaamin qabla an tatakalamuu intaanad hadal marka maalintaada noolow ha ka fikirin shalay maxaa dhacay maxay waxaa igu dhaceen maxaan wax u soo baran waayey maxaan u noqon waayey qof fiican maxaan qur-aanka usoo xafidi waayey ibda ilxayaata alaan nolosha iminka bilow ha noqonin qof canaan badan oo naftiisa canaanta laakiin waxaad noqotaa qof xisaabiya saan sheegi doono marka arrintaasina waa arrinta labaad ayna siinayo arrinta saddexaad labada kitaab waxaa ku qoran laa tadac can tawaafiha taqlibuka calaa amrik waxyaalada maalaa yacniga ee noloshaada burburinaya ha u daynin inay noloshaada gacanta ku dhigaan waxa aan macno lahayn noloshaada inay gacanta ku dhigin matalan tawaafihda maxaa ka mid a waxaa ka mid a inaad aqbashid wax wal oo lagu soo qoro facebooka ha aqbalin boqolkiiba 80 waa been weeyaan marka tawaafihdu inay ku xukumin waxyaalada maalaa yacniga noloshaada inay xukumin dadku inay barnaamij kuu samaynin inaad dadku kaa cadhaysiinin inay dadku maaragtay ku tuturqin adigu ahow qof gacanta ku haya noloshiisa marka maxaa lagu leeyahay weliga ayaa allaha ka fikirin inaad la noolaatid maca tawaafi waxyaalada maalaa yacniga ah ilaahayna qur-aankiisa muxuu inagu yidhi suuratu lmu'minuun markuu mu'miniinta ka hadlayay waaladiina hum can illagwi mucriduun dadka laqwiga maxa maalaa yacniga mu'miniintu way u dhabar jeediyaan suuratu lfurqaan waidaa maruu bilaqwi maruu kiraaman laqwiga iyo meelaha maalaa yacniga way degdeg bay ku dhaafaan maanta alxamdulilah maqaaxiyii la fadhiisanayey teemhurteenadii dhulka kanada la fadhiisanayey maaragtay fadhi kudirarkii wixii o dhan baa la joojiyey guryihiina tagaa lidhi marka tawaafihdii maalaa yacnigii baa lagaa soo qabtay xaqaa'iqdii baa lagu hor keenay ka faa'iidayso ku noolow nolol xaqiiqiya beenta ka tag khayaalka ka tag hawaawiga ka tag khaasatan dadka jaadka cuna been bay galaan laa tadaci tawaafiha taqlibu calaa amrika arrinta afaraad dadka bini aadanka ha ka sugin inay ku yidhaahdaan nin fiican baa tahay way fiican tahay inay ku yidhaahdaan inay kuu mahadnaqaan laakiin ha isku halaynin nin maraykana oo afukaaya wuxuu yidhi 80 qof baan ka badbaadiyey in la dilo ninna igama oran waa mahadsan tahay 80 qof baa maxkamadda la geynayey oo maraykanka dilka maraykanka waa dil xun gobolada qaarkood in la dilay ahayd laakiin ninna igama oran waa lawyer waa nin maaragtay difaaca bini aadanka ninna igama oran waa mahadsan tahay buuri aniga taariikhda waxaan garanayaa dad fara badan oo nolosha ka daatay oo ku soo celiyey oo wax badan u qabtay way yar yihiin kuwa iga yidhi waa mahadsan tahay laakiin muhiim maaha waxaa muhiim ah inaad tiraahdid in ajriya ilaa calaa rabbi alcaalamiin ajarkayga waxaan ka sugayaa ilaaha caalamka oo dhan xakuma maaha bini aadan waxaan ka sugayo ambiyadu maxay odhan jireen qul laa as'alukum calayhi min ajr wax mushqaayadoo naga doonaynay ma jiro waxaan rabnaa uun inaad bini aadan noqotaan idan waxaa muhiim ah dadka bini aadanka qofna dadku haddaad sugtid inay wax ku idhahdaan waa nin fiican baa tahay waxaa sugi ilaa ay kaa yidhaahdaan nin fiican baa tahay isma ictiraafaysid adigu marka waxaa lagaa rabaa inaad adigu is ictiraaftid isku kalsoonaatid qofna aad ka sugin inuu ku ictiraafo arrinta shanaad waxa weeyaan kun nasiija waxdaka dadka bini aadanka ah waxa ay yihiin hadduu doonin waxaa tahay ka faa'iidayso haddaad aragtid nin professeera oo dhaqaalaha ku fiican anu maxaan ugu fiicnaa way haolin haddaad ku fiican tahay dhakhtar iska noqo haddaad ku fiican tahay nin gabaya iska noqo haddaad ku fiican tahay nin najaar noqo haddaad ku fiican tahay nebigu muxuu yihi calayhi salaatu wasalaam annaasu macaadin ka macaadin alard wuxuu yihi rasuulku dadku waa sida macdanada dhulka ilaahay wuxuu ku abuuray boqolaal macdan macdan la mid ma aha dahabku xadiidka ma aha xadiidku sodiyomka maaha sodiyomku kalsiyomka maaha kalsiyomku lamid maaha maxaan ku dhahdaa fosfaarka mid waliba ka kale uu ka duwan yahay laakiin maxay ku kala fiican yihiin qaar baa dahabka ugu qaalisan ama maaska ugu qaalisan laa waxa ugu qaalisan
macdan walba meesheeda marka la dhigo adduunka warshadayn marka la samaynayo xadiidka ugu qaalisan laakiin marka la xaragoonayo xadiidku faa'iido ma leh laguma xaragoon karo laakiin dahabku warshada wax uma tarayo ولذلك النبي محمد الناس معادن dadku waa macdano كمعادن الارض sida macdana dhulka qof ma la yaani majiro qof la tuuri kara majiro qof aanan hibe lahayn majiro qof ilaahay iska abuuray majiro idan kun daataka adu waxa tahay iska ahaw nin baa u abuuray inuu bini aadanka u shaqeeyo mid baa u abuuran inuu dadka u xadiiso xadiiska wad mid baa u abuuran dadka inuu diinta ku soo galiyo dacwo fardiya saaka shaqee mid baa u abuuran inuu noqdo qoraal qoro wax qor mid baa u abuuran inuu noqdo hogaamiye noqo mid baa u abuuran yani wuxuu ku fiican yahay falyafcal ha sugin inaan diraadid maxaan hebelow kale u noqon waaye dadka ha ka fikirin waxay noqdeen laa tuqaarin daataka biqayrika aduu ha isku qiyaasin qof kale qaarin daataka bidaatika naftaada ku qiyaas ماذا أعطاك الله اسكندري بكاه عطاء الله اسكندري إلهي محوكسي تبارك وتعالى أنت خير محض خير بوحاتاي خير كاب بوحاتاي كفايديسو تاسنا مهم أريتك لا شراد لحد وحويان كن بقدر قيمتك يكون النقد الموجه إليك لبدا بسكو وافقين غزالي إيو إيا ديالك يرنجبها قيمها وإنت أوليه إيا دادك كريتيكينيا qofka laga sheekeeyo ee afkaartiisa laga hadlayay waa qof culus dadka bini aadankii marka aad afkaar soo bandhigtid waxay u kala baxayaan afar qolo waxaa la yiraahdaa laa lawna lahum midaba male kumana taageerayaan kaamana horjeedaan qolo markaa way ka hor imani waxa la gelanayn hal iska diido waa oranay qolna way ku wada aamini boqolkiiba boqol qolo afraadina waxna way ka qaadan waxna way kugu diidi dadku waa intaas marka qofka nolosha wax ku soo daraya ayaa la kritikaya waxa la dhahdaa boqorada ingiriiska marka laga sheekeynayo waxa dhahdaa malikatu britaniya masunatun min al-khata boqorada ingiriisku ma qaldanto waa laga dhowray qalad dadku way yaabaan oo soo qaldamayso bini aadan maaha waxayna u qaldameen li'annaha tamliku wala tahkum boqorad weeyaan laakiin xukun male la ta'mal ma shaqayso waxa weeyaan wasaaraha shaqeeya baarlamaanka shaqeeya iyadu way saxdaan احنا مسؤول كماها اذا ما قلطته اذا الذي لا يخطئ هو الذي لا يعمل قفك ان قلتبين وقفك ان شقين الذي لا ينتقد قفك ان لكرتيكين الاورن waxa sheegtay waxba ku jira la afkaar ma keeno cusub okay qofka qiimaha inta ay leeyihiin iyo dadku kula hadlayaan marka taas waa muhiim ha ka cabsoonin in lagu naqdiyo naqdiga lagu naqdinayana ee wax lagu sheegayana dhageyso waxa fiican ka qaado waxa xunna iska dhaaf dadka ku naqdinaya waa saddex waa qof ku jecel waa qof aanan ku jeclayn ku necbayn iyo qof ku nacab okay qofka ku nacabi wuxuu doonaya hadaad sheegto tiraadid wallahi dariiqi jannadu waa kan ana soo arko soo taabtay kuma raacayo li'annahu ku nacib yahay ولذلك النبي جينا محل يقولي فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون adiga kuma beeninayaan nabi allah aayadaha ilaahay bay beeninayaan marka adiga way ku weyneynayaan inaad wax sheegayso way arkayaan laakiin waa xaasidiin weeyaan yaani hasadan min indi anfusihim yiku diidayin marka naqdigu wuxuu imanayaa biqadri quwadaadu inta ay leegtahay taasiirkaagu inta uu leeyahay raadkaagu inta uu leeyahay ayaa lagu naqdinaya marka maxaa laga rabaa arintan waxa laga rabaa toddobaad kun asiyan ala naqdi in lagu naqdiyo ha u jabin in lagu naqdiyo ha dhageysanin in lagu naqdiyo ha u fadhiisanin in lagu naqdiyo inay kaa keenin adna inaad caytantid maxaad noqonaysaa casiyan ul baad noqonaysaa adag waa soconaysaa ul maxaa la yidhi waidaa maruu billaqwi maruu kiraaman waidaa khaatabahum aljahiluuna qaaluu salaaman maxay tahay kuwa iska kaa naqdinayo dad baa jira annaqdu linaqdi qofka u naqdiya inay naqdiyaan qof waxaa jira xaasid kugu ah muxuu yidhi maaragtay ninkii gabiye carabku ahaa af soomaali baa inagu macnaya wuxuu yidhi haddii uu qof aygii ciyaba aan dhagax ku tuuro dhagaxu dahab buu noqonaya aygii kugu ciyada dhagax buu dhamaanaya marka dambe dhagaxu dahab buu noqonaya marka dadka bini aadanka waxaa dhada alqaafilatu tamdi walkilaabu tacwi qaafilada waa inay socoto ayduna waa inay ciyaan adduunku waa in la iska qeylqeeliyo qofka qaylo u abuuran laakiin qofka mashruuc leh عصيا على النقد نقد ما دغيستو وكيف يديستا نقدك
okay arrinta sideedaad waa maxay ee nii soo bandhigayo xaasib nafsak naftaada xisaabi naftaada ka adkow naftaada gacanta ku hay mashruuca xisaabintu waa inuu noqdo mashruuc 4 ah xisaab yawmi ah xisaab usbuuci ah xisaab bil ah iyo xisaab sanawi ah qofku waa inuu intaa yeesho yawmiyan waa inaad xisaabisid habeenkii markaad sii seexanaysid maxaad qabatay maxaanad qaban sideed u tukatay salaadaadii maxaad gaabisay waalidkaagii maxaad ka gaabisay ubadkaagii maxaad ka gaabisay akhristii maxaad ka gaabisay mashruuc baa ilan ku yaalle qofka xisaabinaya waa qof mashruuce qofka bilaa mashruuc isma xisaabin karayo xaasib haddana usbuucii jimcaha marka uu yimaado usbuucii dhammaado isxisaabi haddana bishu markay dhammaato isxisaabi haddana sanadku markuu dhammaado isxisaabi xaasib nafsaka marka xisaab qof waxa dhahdaa aladiina yuxaasibuuna anfusahum yataqadamuun kuwa naftooda xisaabiya horumar bay gaadhaan kuwa aan naftooda xisaabina meeshii bay fadhiyaan waxaa jirta waxa la dhahdo xayaatu sukuun iyo xayaatulxaraka dad ku jira nolol istaagtay statiko iyo dad ku jira nolol movement ah oo socda madaxoogu waa socdaa qalbigoogu waa socdaa jirkoogu waa socdaa noloshoodu way kobcaysaa faamiligoogu way kobcayaan meel bay ku socdaan haba adkaataba nolosha waan sheegi doonaa way socdaan marka qofka waxaa loo baahaya inuu isxisaabiya ma aha inuu isdilo ma aha inuu بسم الله يرى النوضة بسم الله الرحمن الرحيم ما ها إنه إسلاوعه dad baa jira waxay dadku waxay isku khaldaan waxa loo yaqaan naqdiga qofku inuu isnaqdiyo inuu isxisaabiyo iyo qofku inuu isdilo oo iscanaanto oo isbaabiyo at-tahtiib waxa loo yaqaano maxaan ahay miskiin baan ahay maxaan qaban karayaa maxaan adduunka ku soo beerin karayaa noloshu way iga xun tahay maaragtay dad malihi iskool ma dhigan tol malihi ehel malihi gaaja ay haysa wadankii oo dhan rag baa iska qaatay sheekada aad badi maqlaysid waa saas weeye laa naftaada xisaabi arinta sagaalaad waxa weeye raajic mashaariicaka waxaad brojeeyo lahayd dib u eeg raajic muraajaca samee qur-aanka maxaa ku qoran annafsu lawaama qur-aankeenu wuxuu ina baray sidaas beri buu qoray maxamed khazali raximahullah waan xasuustaa markasti waxaa kasoo wareegtay matalan wallahi 30 sano kasoo wareegtay marka anoo inan dhalinyara ayaan akhriyo aad u yar wuxuu qoray kitaab maahayna majalad buu maqaal ku qoray muraajacatun laa rujuuc sidee meesha ugu qornayd baan arkayaa majalad al-umma la oran jiray oo qatar ka soo baxaysay oo ninka la dhahdo doctor sheekh cumar cubeyd xasana uu xukumi jiray xasana waxa uu yidhi ninkaasi raximahullah sheekha calaamadii muraajaca waa inaan ismuraajacayno ka fard afraad ka jamaacaat ka axzaab ka duwal ka umam ka caalam islaami in la muraajaceeyo nolosheena maaha inaan dib u noqono dad baa u fahma han ismuraajacayno inay tahay dib han u laabanno la muraajaca raajic mashaariicaka brojeeyada aad leedahay broje waxaad leedahay caafimaadka broje waxaad leedahay dhaqaalaha broje waxaad leedahay siyaasadda broje waxaad leedahay dacwadda iyo diinta broje waxaad leedahay tarbiyada qoyska oo naftaada brojeyada dhan dib u eeg raajic هم اسمود إن تقفك إن تجاد قمته نعم من ادعى الوصول فقد انهار قفك إن هذا جاري أولامي نعم قريت طبعا وحويا اقرأ كتب التاريخ نرش همودنا إن ما تبلامس دت فربضن بقى وهايستا إن يكوين دت كان نرش بلابيا لا 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 نرش أنا ويسوس عطي إخواني في الله وحقت سمين سيد أوردر ولا سو سمين وحق إنا سمين سيد أوردر لكن waxa nolosha ka taariikhda waa maxay taariikhdu saddex shay bay leedahay qiraa'atu taariikh shakhsiyaadka matalaya akhri afkaarta taariikhdana akhri taariikhda wax kala soo baxay cibrad kala soo baxay iyada waa mashruuca koo iyo tobanaad waxa weeye tacallam kulla yawmin bal kulla saacatin jadiidan maalin walba macluumo cusub baro shay cusub baro waxaad horey u aqoon baro maalin walba noloshaada ku soo biiri macluumo cusub ha noqonin qof macluumo cusub aynu ku biirin kulla yawmin huwa fi sha'nin ilaahay maalin walba shaqo qabtaa walidaalika wuxuu inagu yidhi inikuna maalin walba shaqo qabtaa maalin walba macluumo cusub hel dad baan la sheekaystay meel dhaweyta waxaad la arkaysaa qof aad saaxiib tihiin hadduu kaa maqnaado
toddoba sannadood 10 sannadood oo dib u kulantiin wixii aad ka sheekaysanaysa 10 sano ka hor buu kaa sheekeynaya laa jadiida cindahu wax cusub uu kuu sheegaya ma jiro alhuwa waa isagii un limaada liannahu laa yatacalam ma baranayo التعلم لأجل التغيير وإلى الأبرنا وإلى الإسبدلنا ما ها التعلم للتعلم هذا أبرنا سيد إلى وحبرتي استاتيكو فقه سكون بعد قالي فقه الحركة ما قاليسي من دقائق شيء مركا مالي والبا وحبرتا كورونا وإن مالنتي إلهي كانبا إني وحي نبرتو حتى كلمة عصب مصطلح عصب علمي عصب فقه عصب maaragtay cilmi dacwad cusub noloshu waa bad socotaa dad baa idhaahdaa waxaan hore ma u dhacay ma dhicin laakiin maanta u dhacay waa inaan xal loo keeno tacalam kula yawmin jadiidan qafaska ka baxa limaada taciishuuna fi laqfaas ikhwaani fillah maxaan qafasadan nagu cadibay aan ku nool lahay limaada asbaxnaa asaara maxaan ugu xidhannahay dad kaleeto limaada naxnu fi laqlaal waxay noo xidhanayaan dowlado iyo ururo iyo axzaab iyo afkaar baali oo dhammaatay qarnigii 21 ha iska furfurno wax nagu xoog weyn ma jiro naxnu aqwa annaka xoog badan cuquuluna aqwa cuquusheenu way xoog weyn tahay quluubuna aqwa quluubteenu way xoog weyn yihiin laa axada yaxkumu masiirana qofna xakumi kara ma jiro ila allah aan ilaahay ahayn nataxarar aan xorowno waa muhiim arrinta 12aad laa tacish maca alafkaar albaa'isa afkaarta xunxun ee argagaxa badan leh hala noolaan culummada waxaan uga sheekaynaynaa ciyaalka yaryar ee weli aan qaangaarin ka daaya sheekooyinka looga sheekaynaya la odhanayo waxa inagu sugaya qabuuraha masas iyo beeyaal iyo mas bidaar leh oo isla markaasina maxaan ku dhahdaa mahal leh oo indhaha kuul ka soo bixinaya dadka ha ka cabsiinina laa tukhawifu nnaas dadka waxaa la baraa alafkaar alxaya afkaarta nool إمام مالك بن نبي إمام الفكر بوها إمام الحضار وها وحوي الأفكار الفكرة نوعان أفكار والله بالنوع أفكار حية وأفكار ميتة أفكار نول هي أفكار هي دماتي وهذا وحوي أفكار نول باجرتا وضدك نول هيصا هي أفكار نول وضدك دشا إبقى الإسلام هو أفكار نول وقروح بدن لكن داعش هو كصباح إسلام كصباح حركة الشارع كصباح وأفكار حية تميت لكن تقدريها أفكار ميتة أجرتها تحيي عجيب أفكار لمطيبة أجرتها لكن وحنا وليس إسرائيل وحي قالت اللغة دين شان كورو سنة كورس عبريات دي بقالتين اللغة العبرية لمطيبة كانت اللغة نول بحي سميين دولة إسرائيل هذا كل شيء في قلب العالم الإسلامي قلب دولة الإسلام كل شيء وحاس وإلا أخرجته أنت لا تعيش مع البائسين dadka basiga ku noole murugada badan leh cabsida badan leh naxdinta badan leh dadka ka cabsiya hal noolaan afkaartooda hal noolaan ish maca al-ahrar afkaar xora oo nool okay alinta 13aad la tastaslim litahaddiyat dufiyada dhibaatooyinka isku dhiibin hadii laga yiraahdo cudur baa ku dhacay dhiibin waxa uu deerkeernaji wuxuu sheegaa gabadh bukootay 35 sannadood odaygeygina ka dhintay ciyaalkeygii weynay kadibna uu ku dhacay shalal 35 sano ay jiiftay ayaan bay iska dhakhtarka u jiiftay cabsoonaysay iyo akhriday buug waa cajiib buugga waxaa ku qornaa kelmad uu nabi ciise yidhi alayhi salaam nin buu u yimiday faalija oo mashruuc ah oo nus baktiyey wuxuu ka yidhi sarakac oo dhaqaaq ninkii uu kacay uu dhaqaaqay waa mucjizo waa ibraahim waa ciise alayhi salaam yuxyi almawt موت كبر نولين جريبا قبضي waxaa galay xoog way sara kacday dhaqtarka baxday 5 sano way fadhiday ما الذي أقامها قوة من الداخل قوتي قدهي نوليسي بحول هذا نك كتاب قري كما تفكر تكون سيدات كيف فكري سيدو من نقنيسا أوكي هايسكو ديبين عذرك هايسكو ديبين كوا كاعب سينيا هايسكو ديبين كوا كديليا هايسكو ديبين مستبدين ديكتاتورada هايسكو ديبين كوا نولشا intay khadaalayaan koranaya wax la sameyn kara ma jirto هايسكو ديبين waxaas oo dhan la tastaslim faqriga haysku diibin hadaad faqiir tahay haysku diibin waxaas oo dhan waxaad tiraahdaa ana aqdir waan karaa waan awoodaa waan samayn karaa waan rabaa inaan sameeyo uriid an akuna shay inaan wax noqdaan rabaa laa uriidu an akuna bila macnan
adduunka la ima keenin inaan maalahan ay noqdo arrinta kale khatit lilmustaqbal arrinta 14aad mustaqbalka planificationkiisa samee jaangoyntii mustaqbalka samee maanta noolow laakiin qalin iyo bug qaado maxaa noqon doonaa sanadka soo socota 2021 ماذا أريد أن أكون ماذا أريد أن أكون maxaan qori doonaa maxaan samayn doonaa khadad planification imika qaado qalinkaaga ha fadhinin kac toos ha aqbalin kuwa kula fadhi waxaad ku tiraahdaa ma fadhinayo waan kacaya nacam nabigu muxuu yidhi calayhi salaam hadduu qiyaamihii kacayo idaa qaamat alqiyaama wa fii yadi axadikum fasiila mid gacantiinana ay ku jirto laan fastadaaca an yazracaha uu karayo awoodaya inuu beero hee ha baxsay lama oran dee qiyaama dhacaya falyazracha ha beero marka waxa islaamku wuxuu ina baraya alcamalu muqadasun in wax la qabto waa muhiim camal la qabtana maxaa ugu fiican camalka maskaxda dadka nooleyntooda dadka abuuritaankooda dadka hagaajintooda idan maxaan kaa idhi khatid lilmustaqbal 15 isnaci almacruufa liahlihi wagayrih macruuf samee had iyo jeer kun naafican ku wax tarar ahow kun naafican ligayrik gayrkaa wax u tar icmal ligayrika shay eeg qof bini aadana tala sii uu ku guursado tala sii uu ku noqdo shaqo uu ku helo tala sii iskuul uu ku laabmo tala sii uu talo icmal shay adduunkan wax kusoo kordhi nacam laa takun ha noqonin qofka markuu arko fiican ka naxa dad baa jira hadday ku arkaan adoo iska qurux badan iska labis war weli waad nooshahay bay ku leeyihin oo maxaa sugaysa ma alladii kunta tantadir an amuut maxaa sugaysa inaan fool xumaado laa ilaaha ila allah miskiin waxa weeye markaas macruuf samee nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam macruufka dadka u samee walow haddaa wax kale kala wade an talqaa aad kula kulantid wejiga walaalka adoo hee dhoola caddaynaya dhoola caddayntu waa khayr ibtisaamadu waa khayr waxay ku tusaysaa inaad nooshahay dad baa jira cabuusa waxani waa maxayo murugoonay laa idxak dadka u qosol ibtasim nabigu wuxuu yidhi watabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa walaalka ood ku qosashid afkiisa ku dhowla caddaysid hortiisa waa sadaqad ugu dambayntii 16 waxaan ku leeyahay ictikaaf baa la galayaa ramadaan baa soo galay koronana waa lagu jiraa masaajidiina in badan way naga xidhan tahay ictikaafa guriyiina ku ictikaafa niyatul ictikaaf faad helaysiin maxaad samaynaysiin ictikaafka ka dhigta barnaamij nololeed okay quraankii la noolaashihiisii dikrigii akhristiisii isla akhrintii adkaarta iyo wada noolaashihii isxasuusintii barnaamij ictikaafku waa maxay alcukuufu cala addaat inaad isheshid man anta adu maxaa tahay furaskaagu waa maxay dacfigaagu waa maxay quwadaadu waa maxay waa 16 arrimood waxaa inii soo bandhigay waa mashruuc aan oran karno mashruucu koronaha sideen nolosheenna u kobcinaa insha allahu tacaala halkaas baan kasii wadayn doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo barnaamijkeenan aan u bixinay maaragtay dhismaha qofka bini aadanka oo xalaqadii 3aad baa tahayd waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh